statistics horta aad isku mara raacsano anaga bangiga dhexe waxaan daawacanaa tirakoobyadiina khaaska ah marka waxaa noo qoran oo aaminsannahay 80% ka badan dadka 15 sano ka weyn horta inay mobile money leeyihiin oo taleefanka isticmaalaan transactions isticmaalaan waa laga yaabaa inay xoogaa aan saajurad gareyno qurxinay laakiin waxaan isku raacsannahay dadka meeshaan ka hadlo dhan in majority-ga ay yihiin dad aan haysanin smartphones oo isticmaala taleefanka caadiga isticmaala dantaana ku qasbaysa qof kastoo 15 sano ka yarba la egba inuu baskad u raacaya xataa hadartaan waa si xumaatay xaaladii inuu lacagta ka diro taleefanka wuu ku qasban yahay almost 13 milyan iyo 643 kun oo account oo mobile money waddan ka furan oo 5 shirkadood ilaa 6 shirkadood u qaybsanto sanadkii la soo dhaafay 13 bilyan iyo bar oo volume transaction ah baa la soo dhaafsaday halka marka taleefanku ma ahan kaliya payment anaga hadda CBS ka imid mahane xaalado badan baa hawshan xalinaysa waxaa jira shakhsiyan waxa wax ka iibsadaa dad aan haysan smartphones for example bishiiba nin baan wacaa waxaan ka iibiyaa idaha deexda deg marka waa la tilmaamay idahaas u yaal wuxuu leeyahay okay ma fiican yahay hejkiisaas waaye hadda wixii ka dambeeyay marka taleefanku waas qaada baan dhihi doonaa oo soo sawir baash oo video ka soo qaad marka access bay siinaysaa dadka ganacsiga samaysanaya wax badan bay fududeynaysaa waxaan always arkaa TikTok ku arkaa meelaha gabdho raashin gada gurigooda jooga laakiin dukaan u furnayn ama maqaayad u furnayn haddana ka iibiya dadka oo online-ka ka iibiya marka dad badan oo access-kaas aan heli karin ee runtii fududeynaysaa hadda waxaa lagu tiriyaa internet inay haysatid xuquuqul insaanka ka mid tahay oo xaq insaani ah oo alaabihii oo xuquuqul insaanka kale u adeegay sababtoo ah free expression-ka xataa qofka wax sheegto dowladda wax ka sheegto oo dhibaatada lagu hayo ka hadla xataa waxa u fududeynaya taleefanka u fududeynaya wax aad u fiicanna waayo qofka marka inuu wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu taageersan yahay iyo wuxuu diidan yahaba inuu sheego karayo ganacsi kaliya iyo xoolo kaliya kama sameynayo marka waxaan aaminsannahay howl aan ka shaqeynaa jirto ah financial inclusion inaan dadka ku riixno inay qayb ka noqdaan sektorka maaliyadeed dhibaato naga haysta marka dadka inay galaan bankiska oo bangiyada akaunada ka furan hadeertaan ay dhib ku gaareen 1 milyan oo account oo ogtihiin qaarkiin 4 account waa leedihiin marka waxaad dareemaysaa 300 kun 400 kun oo qofood kaliya ayaa waxaasoo bangi ah account uga furan yihiin meesha 11 milyan iyo 643 kun oo qofood oo account oo ay ka furan tahay mobile money ay ka furan tahay marka waxaad dareemaysaa baransiga halka u badan yahay dadka meesha ku badan yihiin waxaa sax ah oo daraasaadkana sheegayaan inay wax soo saar kor u qaadi doonto beeraha waxaan rajaynayaa ninka CEO halkan ka tagay shirkadda iskale maxaa la yiraahdaa mobilka in lagu sii build gareeyo AI si beeraleyda iyo xoolaydaba ay uga faa'iideystaan macluumaadka ku jira internetka si xoolahooda u dhaqdaan ay uga faa'iideystaan marka bal internet waa helayaan bal access in loo sii sameeyo maadaama dalka uu ka yimid modelo waxay leeyihiin free ah in lagu sii build gareeyo oo laga sii fikiro in halka looga faa'iideysto marka hawshan hormuud shirkadda hormuud moogtahay shirkad la wada leeyahay waayo qof kastoo Soomaaliya sheega kara marka waa hooyadii kambaniyada waa innovation driven company oo markasta waxa la yiraahdaa afkaaraha waddankan ayada horseeda keenta marka modelkan hadda saacidayso runtii internet markaan price ka fiiriyay waa saacidaad laakiin waxay fududeynaysaa skill in business ka noqdo ama dadka si business u weynaado maxaa access-ka uu si scalable u noqdo waxaan aad u taageersanahay inay hawshan la riixayo aniga dadkeena dhaqaalaha ka shaqeeya waxaan aad u jecelnahay in waxa innovationska iyo ganacsiga la keenayo inuu noqdin wax ku xiran aidka ama taageero ku xiran marka in dadka la siiyo ama ayaga ay service-kan qaataan waxyaabaha dadka u riixna oo la rabo in qofka Soomaaliga iyo dawladda isku tashtaan ee xoolahooda maalgashtaan amahna la siiyo waxaan ugu bishaareynaya teamka shirkadda iska leh dadka Soomaalida waa dad dhaqan ahaan iska bixiya deynta marka walwalka yuusan jirin the whole banking system-ka dadka 3% ka hooseeya waa nambarada ugu yar adduunka dad in lacag iska soo celi waayaan waxaan kaloo kugu sii darayaa kuwa lacagta iska bixi waaya xataa waa kuwa lacagta leh badana marka kuwa shiidka ma
dadka taleefanadan qaadan doona waa kuwa lacagta iska bixin doona oo badanaaba dadka hoose aan dhihinay lacagta badan haysan baa lacagta iska bixinta ku fiicanta marka wax walwala inuu kaa gelin baan rajaynaynaa aad ku taageertaan muqdisho keliyana focus saarin oo accesska muqdisho iska fiican yahay inaad xoogga saartaan gobolada dhan iyo dalka oo dhan aad iyo aad u mahadsantihiin intaasaan kusoo koobayaa. Assalaamu calaykum.